waxaa sharaf iyo karaamaba inoo wada ah in lagu dhawaaqay maanta tartanka hirgeli hibadaada. dhagaha dadweynaha waxaa wax badan ka yeerayay fankii oo la leeyahay murtiya ku tartamaya aflagaado iyo dhaqan xumo uu adeegsanayo waxay murti ku sheegayaan laakiin aan ahayn. barnaamijkaani wuxuu ka duulayaa in la kala ogaado tagtooyada iyo maxaan ku yidhaha warbaahinta suugaan ku sheega aflagaadada iyo dhaqan xumada loo adeegsado inaanay ahayn murtida iyo suugaanta Soomaaliya ee dhabtaha ay ahayd wax la munguuriyay laguna dilayay dhaqanka iyo diinta islaamka. laga bilaabo barnaamijkan hergeli hibadaada oo aan ka mid ahay guddiga loo xil saaray in ay kala saaraan hal abuurada, waxaan ballan qaadaynaa si cadaalad ku jirta murtidaas inaan u garsoori doono, inaanay jeclaysi noqon doonin, in aanay noqon doonin maxaan ku yiraahdaa dad jeebka lagu wato. waxaan kale ku faraxsanahay maanta wasaaradda warfaafinta lafteeda inay ku dhawaaqdo baryahan codada dadka gashay, dadka suugaanleyda iyo fanaaniinta iyo ciyaartooyda waxay ahayd wakaaladii laga qaaday tiyaatarka, laakiin wasiirka ayaan afkiisa ka dhadhaminay inay wakaalad buuxa tahay. wakaaladnimadeeda qof baabi'i karta iyo qof dili karta midna ma jiraan. suugaanleyda, ciyaartooyda, heesaaga, jilaaga ayaa mas'uul ka ah. jaga iyo madax iyo mushaarna midna kuma rabaane, waa haybadii alla siiyay ay ku mintidayaan sharaftooda iyo labiskoodina ah. waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u hambalyeynaya maamulka tiyaatarka oo maareeyuhu ugu sareeyay iyo maareeyo ku-xigeenka ee agaasimayaashaba sida ay ugu dhabar adeegeen barnaamijkan inuu hergalo. waana hergeliyay, waana ku faraxsannahay. ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa inay kala bartaan murtida iyo suugaanta dhabta ah iyo tan gacan ku rimiska ah oo dhaqan dilka inay kala baran doonaan. waa mahadsantihiin.